noqdaan qaranka وأبطري دقيستين لكحمي عيب إسكا دولين وديك سوكي كدارتين ودرارتي للتاقي رب العالمين هلكا واحد soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo aan ku soo dhaweynayno gobolka Togdheer iyadoo ay bulshada gobolka Togdheer dhamaanteed ay dhan tahay xisbiyada mucaaradka iyo kuwa maxaafidka kuwa waliba rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan gobolka Togdheer soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaalka ka soo Somaliland دحلكي ويلا شيء وأبطري دقيستين لكحمي عيب إسكا دولين وديك سوكي كدارتين ودرارتي للتاقي لدي ضيع لكيني للانكينو نبض كسيدي ودرارتي ودرارتي للتاقي غدي ضيع لكيني دلانكينو نبض كسيدي ودرارتي للتاقي غدي ضيع لكيني دلانكينو نبض كسيدي وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعياها وطني قدرتها العدول وما هدافها وانا قدسها وحيد عيابها لكي سعياها وطني قدرتها العدول Somaliland
dhaqaaqday siday turxaanka u dhameen dhigod iyo qayrkood u dhaafeen alla u dhow Somaliland dabadii wanaagay dhaqaaqday siday turxaanka u dhameen dhigod iyo qayrkood u dhaafeen alla u dhow ودرارتي للتاقي قد ضيع على كيني بلان كينو نبضكو سهزي ودرارتي للتاقي قد ضيع على كيني بلان كينو نبضكو سهزي وما هدافها وانا قدسها وحيد عيبها لكيس عيها والظني قدبتها الهدور وما هدافها وانا قدسها وحيد أنا قوى عبد الرحمن شغال مفاهية شمح احنا أفايين كيم حلك اللي قبل بدلي اللي بدلي لطريقة مدحوينها رماء الشرعية أنا قوى لي أنا حلكي وليجي kuna hadlaya ilaa imika sida sharciga ah afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan jecelahay inaan warbaahinta sharafta leh halkan maanta burcaan ku kulanay aan waxoogaa warbixin ka siiyo warbixin ku filan aan ka siiyo socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tagay dhinaca bariga ee dalka socdaalkaasi runtii wuxuu ahaa mid taariikhi ah oo aad iyo aad muhiim u ah madaxweynuhu sida aad la socotaan ee warbaahinta laftiinu aad gaarsiiseen ummadda iyo dalka iyo dibadda aad gaarsiiseen madaxweynuhu wuxuu xalay ku sugnaa magaalada Laascaanood magaalada madaxda gobolka Sool ayuu ku sugnaa maanta oo dhan waxa uu dhex meerayay madaxweynuhu oo uu kormeerayay hay'adaha dawladda ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood halkaasoo mashaariic badan oo qaarna muxuu ahaa furayay oo xariga ka jirayay oo wadooyin leh لمحوها دسميال قارنا أو كورميري قارنا محوها أو بنيني أو دقيق يقولي أو دقيق مركا مدحونو الشقة عرس أيو كسوة قبتي مقالة مدحدا Laascaanood وحبد مودا مقالة مدحدا قبل كاسي صولي Laascaanood إن أي دولة مدني أحمد محمود سينايو أي سيجارة وجود على تي قبل كاسول أياد مودسي مركا اللي يقول بحدا مشاريع ذا كير كشيء كوك عليه ملايين كدولار waxaa lagu qiyaasay mashaariicda ilaa imika fushay inay tahay ilaa 7 milyan oo dollar ay tahay ayaa lagu qiyaasay oo ay ugu xoog weeyeen mashruuca dhinaca caafimaadka oo ay ku kacday 3 milyan oo dollar mashruuc dhinaca muxuu ahaa waxbarashada oo dugsiga hoyga ahaa Laascaanood lahayn jirtay oo dib loo dhisayo oo dugsi secondary hoy laga dhisayo oo ay ardayda gobolka Sool intii soo gaari karto dhani ay halka muxuu ahaa gali doonaan kala faa'iideysan doonaan iyagoo ka yimid magaalooyinka yaryar ee muxuu ahaa Laascaanood gobolka Sool ka yimid ay gali doonaan dugsiga sare waxa kale oo mashruuca saddexaadna uu yahay mashruuca biyaha mashaariicaas oo ilaa 7 milyan oo dollar ay ku baxeen ayay xukuumadda mudane madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo ay ka hirgelisay gobolka Sool taas waxa ay mashaariic maanta qaarna la furay qaarna la dhex dhigayay qaarna muxuu ahaa la kormeeriyay ay isku jireen waxa kale oo socda kharashka hore mooyaan iyo lacagta hore mooyaane mashaariic kale iyo kharashyo badan oo ku kici doonta muxuu ahaa iyaguna lacag kale ayaa iyaguna u bilaabmaya oo magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood ka bilaabmaya inta marka laga tago wuxuu ahaa runtii socdaalka madaxweynuhu mid siyaasi ah ayuu ahaa oo wuxuu ahaa mid nabadeed labada qodob ugu waaweynaa mid siyaasi uu ahaayo waxa uu siyaasi ku ahaa madaxweynuhu wuxuu jecel yahay in dalkan oo israacsan oo mid ah oo Soomaaliland aw haddii alla yiraahdo markuu xilka ka dago أو محوها كتر أيو آدي آدو شعري oo taariikh dhaba oo fiican ay ka dhaayuu madaxweynuhu jecel yahay saas awgeed dadka ku dhaqan gobolada Sool Xaysimo iyo muxuuha iyo Sanaag ayaa muxuuha Sanaag bari oo ay iyagana qaad ka joogeen laakiin reer Sanaagna ay joogeen ayaa madaxweynuhu ula kulmay wuxuu shir weyn ka dhacay halka yar aan carabka ku adkeynaya shir weyn ayaa wuxuu ka dhacay magaalada la yiraahdo Ali Cadeeye
magaalada Ari Cadeeye waxay isugu yimday wax alla wixii madax dhaqameed iyo hoggaan dhaqameed ahaa ee ku sugnaa muxuu ahaa gobolka Sool oo ujeedadu ay ahayd ayay isugu yimid ilaa iyo 49 caaqil iyo garaado iyo ismaayo isugu yimid madaxweynuhu waxa uu sheekeeyay oo uga warramay sida uu ugu heelayahay inay dadkooga wax la qabsaan oo ay ugu sabab gobolada dhinaca galbeed ay u horumareen iyaguna ay u horumareen la jecel yahay una heelayahay ayaabay muxuu ahaa ayuu madaxweynuhu aad iyo aad u sheekeeyay oo sababta oo taariikh oo qoraal ah ayuu halka ka jeediyay waxa kale oo madaxweynuhu aad iyo aad uga hadlay nabadda iyo dadka beelaha gudahoogana ay nabadda ilaashadaan gudahoogana ay nabad ku wada noolaadaan oo saad ogtiin shaqaaqooyin ayaa muxuu ahaa beelaha qaarkood walaalaha ee reer Sool ka dhex dhacay sidii looga nabdi lahaa ayuu madaxweynuhu aad ugu booriyey isagoo ku booriyey si gaar ah in dadka talada imika haya ee dhexdhexaadinaya ay aad iyo aad u ayidaan oo aad u ogolaadaan oo nabad baacana macana ay nabadda muxuu ahaa qaataan ayuu madaxweynuhu aad iyo aad muxuu ahaa u xoojiyey waxa kaloo aan shirka idinka sheegayaa oo yadna xusid mudan oon warbaahintan jecel lahaa inaan muxuu ahaa marino in madaxweynuhu shir guud oo ay ku kulmi doonaan gobolada muxuu ahaa Sool iyo Xaysimo iyo Buuhoodle iyo Sanaag Bari la isugu iman doono 25 bisha tobnaad waa bisha Oktoobar 25keega magaalo madaxdan gobolka Burco ee gobolka waa hareertayna ayaa la isugu iman doonaa marka shirka weyn oo noqon doona ugu dambeeyay ee xiirin doona gobolada ku nool ee tabashadoodana ay ku soo bandhigi doonaan laguna saari doono looga jawaabi doono ayaa muxuu ahaa ayuu madaxweynuhu iclaamiyey waxaan muxuu ahaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo dhaweyntii qaaliga ahayd ee aanu magaalada madaxdan kaga soo baxnay magaalada madaxda Hargeysa ee aanu ku tagnay Laascaanood oo magaalada Laascaanood gudaheega oo isbedeshay runtii Laascaanood hadii la xaman jiray maanta wajigaanu kala kulannay ee aanu ilaa xalay kala kulannay wajigii hore different ka oo aad uga duwan ayaabuu ahaa waxay ahaayeen dadweyne haddii markii hore loo jiray way sii jeedaan oo Soomaaliland way ka sii jeedaan dadweyne u soo jeestay oo ay dawladuna runtii si cilmiyeysan ay u hantiday dawladdu waxay ku hantiday dadka gobolka Sool wax qabad bay muxuu ahaa ku hantiday waxay dadku arkeen in dawladdu ay dawladdoodii tahay in madaxweynuhu yahay in uu muxuu ahaa u laaf furan yahay inuu muxuu ahaa u arrin furan yahay ayay muxuu ahaa ogaadeen markay wax qabadkii arkeen ayay dadkii dhammaantood soo wada jeesteen marka haddii la oran jiray muxuu ahaa reer Sool iyo reer Xaysimo iyo muxuu ahaa Sanaag Bari iyo haddii la oran jiray muxuu ahaa Buuhoodlaba dadku dhinaca kale u sii jeedaan haddii la oran jiray xantu cayn ka ahayd magaalooyinka taala arrintaas way dhamaatay albaabkaasi wuu soo xirmay waxana muxuu ahaa lagu gabagabayn doonaa haddii la yiraahdo shirkaan idin sheegay 25 bisha tobnaad ee Oktoobar 2016 mahadnaqa gaareen madaxweynaha ka sida waxa weeyaan muxuu ahaa soo dhaweyntii ballaadhneyd ee madaxweynuhu Hargeysa kaga baxay ilaa iyo muxuu ahaa Laascaanood ku tagay oo dadku ay jidadka hareerahooga tubnaayeen caleemo qoyan ay dhulayeen madaxweynuhu soo dhaw waa geesigii aan godob lahayn iyo muxuu ahaa aad iyo aad soo dhaweyn ah oo madaxweyne soo dhawow iyo haliyo aad iyo aad u fiican haliyey muxuu ahaa talada haynoo hayay hoggaanka eriyacankaas aad iyo aad u wanaagsan oo runtii waddanida ka muuqato shucuur waddanida ka muuqato ayaa madaxweynaha Hargeysa markuu ka soo baxay ilaa iyo Laascaanood gudaheega runtii socday waanan u mahadnaqayaa waana anigoo magaca madaxweynaha ku hadlaya aad iyo aad baan dadweynaha soo dhaweynta dheer faraha badnaa ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay gobolkan Togdheer oo imikana wacdala naqsay haddana oo gudoomiyaheegana ay hor joogo ninkaad u bixisan muxuu ahaa qabyo tire oo hor joogo ayaabaan muxuu ahaa ku wareejinayaa saawsnaguna magaca madaxweynaha ugu salaamo muxuu ahaa ummadii soo dhaweysay gudoomiye soo dhaw waxa aad iyo aad waxaan si mug iyo milgale iyo sharaf la u soo dhaweynay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo oo socdaal shaqo oo guushii ugu weyneed uu ka soo hoyo gobolada bari ku soo hoyday caawa oo bishu tay 20 maalin Sabtiya Burco waxaan halkan uga mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Togdheer waliba degmada Burco ee sida wanaagsan ee quruxda badan madaxweynaha u soo dhaweeyay hadday tahay ciidanka qaranka
salaanta siiyey sida sharafta loo siiyey taliyahoodii halkan joogo hadday tahay ciidanka booliiska hadday tahay qaybaha arrimaha bulshada hadday tahay iskuullada waxaan halkan uga bogaadinayaa dhammaan sida wanaagsan ee quruxda badan leh sharafta ku jirtay u soo dhaweeyeen madaxweynahooda aad iyo aad baan uga bogaadinayaa waxa ah taariikh axmed maxamuud siiraanyo wax fara badan ayuu ku suntan yahay taariikhda Soomaaliland waxay ka mid noqonaysaa guusha gobolada bari taariikhii hore u lahaa ama darajo ha noqoto ama furistii ururada siyaasiga ha noqoto ama ha noqoto wax fara badan uu koobsaday ama dhismaha iyo dayactirka dalka hadday tahay wadooyin oo bilaabay isaga la koobsaday hadday tahay dhismayaal qurux badan oo wasaaradaha uu ka sameeyay hadday tahay dhinac kasta markaad ka eegto waxay tanna waliba ku sii khatimayaa xantii ahayd gobolada bari lama hayo oo maanta la soo gabagabeeyay waa madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda Soomaaliba Allah saanood seexda waa u taariikh lama hayo madaxweynaashii ka horeeyay Soomaaliland meeyeen madaxweynaashii Soomaaliyana hore umay samayn ama may seexan laakiin waa madaxweynihii ugu horeeyay ee seexda Allah saanood waliba guul ka soo hooya waa ogtiin sida wanaagsan uu ka warramay taliyaha uu afayeenka madaxweynaha Mr. Shamax ilaa iyo waanu la socno meediyaanu ka daawanayna sida sharafta leh loo soo dhaweeyay shirkii arcadayna wuxuu ahaa guushii ugu weyneed ee uu gacanta ku dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay hambalyo aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaanu leenahay halka ay shirkan dambe ee lagu qaban doono Burcana waa kii u noqon doona dhamaystirka u noqon doona ayuu noqon doona insha Allah biidnillah 25 Oktoobar annaguna waxaanu hoos gareynaa waa soo dhaweynaynaa shirka in halkan lagu qabto waliba gacmaha la isku saaro la isku calool xaadho Soomaaliland sidaas Soomaaliland waxa ka kooban tahay 14 gobol 6 baa ee leeyahay 6dii gobol wuxuu kaga soo qabtay Boorame waa ogeydeen wiigan u joogay uu ka soo baxay habeen buu Hargeysa seexday Gabiile iyo Boorame iyo Maroodijeex buu soo maray Saaxil iyo haddana Togdheer buu nagu maray Saraar iyo Sool buu tagay 7 gobol buu kormeerkiisu koobsaday intaasba waa hawl maalmeedkiisii shaqo waa ku soo dhaweynaynaa waa ku mahadsan yahay idinkana meediyaana waxaan leeyahay waa si wanaagsan baa uga qayb qaadatay safarka madaxweynaha oo waliba u qurxiseen idinkana waa idin mahadnaqaynaa oo markii ugu koowaadaan aad iyo aad ku farxay Soomaaliland saxaqiya oo ilaashay oo aabbatariyay degaysteen dhaqamiye eeba iska dhowreen dhigsogeyay ka dhaarteen ودرارتي للتاجي لدبي على كيني للانكينو نبض كسيدي ودرارتي للتاجي لدبي على كيني